دروس رمضانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله العظيم. walaalayaal ilaahay mahadiisa waxaanu soo gaarnay bishii barakaysneed oo ramadaan. waxaanu ku dhex jirnay oonu bilownay duruusteennii ramadaaniyada aheeday. waxaanu qaadanay darsigeenni koowaad oo waxa weeye aayaddii ugu horeysay oonu ku soo qaadanay. ilaahay nooga warramayey fardiyatu soomi ramadaan, xigmada loo soomaayo iyo waktiga bisha ramadaan soonkeeda la farad yeelay ayaanu maaragtay soo qaadanay. aayadda ku xigta ilaahay wuxuu leeyahay: shahru ramadaan aladii unzila fiihi اlqur'aanu hudan linnaasi wabayinaati min alhuda wاlfurqaan faman shahida minkum shahra falyasum. sidaasuu ilaahay leeyahy. aayaddan marka waxaa ilaahay ku caddaynayaa iyaduna ka hadlaysa fardiyatu soomi ramadaan, bisha ramadaan soonkeedu farad inuu yahay. waxaa aayaddan ilaahay uu ku caddaynayaa aayaddii hore oo darsigeenna hore aanu ku qaadanay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dhahay ayaaman macduudaatin ou dhahay. ayaamihii macduudaadka ahay, maalmihii yaray oo tirsanay sanadka bilihiisa bisha ay markaasi ay ku jirto oo bilaha ay ka tahay, bishaasu bilaha ay ka tahay. markaasuu dhah ilaahay shahru ramadaan aladii unsila fiihi اlqur'aanu. waxaa meesha ku jirta marka waxaa la soo qadarayaa tilka alayaamu, maalmayaashan oo macduudaadka ahoo yar waxaa weeye shahru ramadaan aladii unsila fiihi اlqur'aanu. waa bisha ramadaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka uu soo dejiyey. bal hadda bishaanu markii soonkii in ayada la soomo la ysku farad yeelay, faa'iido fara badan oo kale ayay xambaarsan tahay. faa'iidada ay xambaarsan tahay waxa u dhahay ilaahay shahru ramadaan aladii unsila fiihi اlqur'aanu. ayaamahan macduudaadkaahu waa bisha ramadaan oo qur'aanka la soo dejiyey. waxa la soomaayo bisha ramadaan oo qur-aanka la soo dejiye weeye. hadda bishaan faa'iidada ay iska leedahay ayadoo la soomaayo ayaa haddana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu soo dejiyey qur-aankii kariimka ahi ayuu ilaahay soo dejiyey. sida xataa asar la wariyene kutubtii hore oo qadiimka aheeday oo munasalada aheeday oo ambiyadii naga horeysay lagu soo dejiyene ayaga laftirkooda waxaa la soo dejiyaa bisha ramadaana la soo dejiyey. bishaan marka waxa weeye waxa ay koobayso iyo waxa ku dhex jira wax laga hadli kara maaha. oo ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala waa bisha ramadaan aladii unsila fiihi اlqur'aanu, oo qur-aanka la soo dejiyey. qur-aanka falaa'isha qiradiisu ay iska leedahay si khaas ah bisha ramadaan duruusteenaanu ku soo qaadan doonaa. marka bishaan waxaa la shahru lqur'aana la yidhaah, bishii qur-aankaa la yidhaah. maxaa yeela qur'aanka si gaara in loo akhriyo oo qiraa'atu lqur'aanka cibaadada salaadaha wixii ka soo hara in qur-aanka la akhriyo ayaa si gaara loo sunneeyaa. oo qur-aanka markaa maxaa yeele qur-aanka waxaa weeye sanad guuradiisi waaye. bil kasta oo ramadaan hoo dhalata qur-aanka ilaahay oo kitaabka ilaahay munasalka ah oo khayru khalqilah ilahay ku soo dejiyey oo kitaabkii ummatulmuxamed ah kutubtii dhammaanteedoo la soo dejiyey wada kulmiyey. waxaa weeye sanad guuradiisu waa bishaan ramadaanka. maadaama marka bishaan ramadaan qur-aanka sanad guuradiisa ay tahay, ayada falaa'isha kaloy leedahay iska daaye. qur-aankii ilaahay kitaabka alloo munasalka ahay oo qur-aanka ahay ayay waxay u tahay sanad guura u tahay. welidaa ayaa marka waxaa aad iyo aad la isugu adkaynayaa annagoo soo qaada doona qiraa'atu lqur'aan
في هذا الشهر أو فضيلة قراءة القرآن في هذه الشهر بشان رمضان قرآن كالآخريو فضيلة إسكالية هاني درسي قوني كسو قادة دونا وحا الله إسكربا إنا سيادي هذا قفك سو مسلم بشان رمضان كقرآن كنو آخريو maxaa quraanka sanad guudis waad aragtay waxyaabo waxa jira hadda ciidaha oo kalantood waxyaabo gaar ah oo khaas ah iska leeyihiin waxyaabo markaasi tadkiraadaha oo tadkirooyina iska jira oo waxyaabo la xusaa jira oo wax lagu xasuusto oo maalintaas waxa weeye shacaa'ir badan la muujiyo quraanka waxa lagu xasuusanayo waa bisha ramadaan oo naska ilaahay uu ku cadeynayo in bisha ramadaan la soo dejiyay quraanka markaa waxa weeye dabaaldegiisu muxuu yahay waxa weeye dabaaldegiisu in la akhriyo guriyaha in lagu akhriyo masaajida lagu akhriyo lagu idoo la i'tikaafayo maxalaadka markaasi camalka lagu akhriyo quraanka markaasi xooga inaanu saarno weeye cibaadadii kaleentood iyo awraadi kale oon akhri jirnay waxaanu ku bedelaynaa bishaan ramadaanka quraanka inaanu asaga xooga saarno oo waqtigeena aanu ku bixino si waxa weeye عملك مضاعف ويا بشهر رمضان وعمله مضاعف ويا وذنبه مغفور بشان رسولك وهؤلاء عليه الصلاة والسلام وقاضت دوناه عمل كيس مضاعف ويا ولا جبالية وهو مركز انت جرت كبضا ايالا دغيا مثال waxaad loo soo qaada kara halkii ragco oo salaada ama faral ha noqoto ama sunna ha noqoto oo bishaan ramadaanka aad dukato 70 ragcadood ay u dhigmaysaa oo bilaha kaleentood aad dukato ay la ajir noqonaysaa hal dirham hadaad la baxdo hal shilin aad la baxdo 70 oo u dhigmaya baabka sadaqadana waa ku tagi doonaa hal shay oo ihsaan hadaad samayso 70 u dhigmaya bil kaleentood intaas ka helaysid qof walba marka waxa loo baahan yahay fursadaas qaaliga ah inaysan dhaafin oo aanu ka faa'iideysano fursadan qaaliga inaanu ka faa'iideysano oo aysan cayaar nagu dhaafin marka bisha la soomaayo ayaamaha macduudka waa shahru ramadaan alladii unzila fihi alqur'aan ilaahi waa bisha ramadaan oo quraanka la soo dejiyay haddana waxa weeye waxaan ku tagi doonaa habeen la yiraahdo laylatul qadri oo habeenada markaasi bisha ramadaan kamida oo sidaanu ku tagi doono sida raajixa bisha aakhirkeeda ku jirta haddana oo taarteeda ku sii jirta in kastoon hadda waqti muayana aan loo samaynin ayaa haddana waxa weeye leyladii ugu fadliga badneeday bishatan ayaa haddana quraanka loo doortay bal aimada waaweyn waxayba yiraahdaan laylatul qadri waxay markaasi khayr min 1000 shahrin ay ku noqotay mar haddii quraankii ilaahay oo kariimka ahay oo cadiimka ahay la soo dejiyay ayay ayaduna markaasi sidaasay waxa weeye khayr min 1000 shahrin ay ku noqotay dad badan oo mufassiriina oo saxaabo iyo taabiciin iyo ayma kale la ayaa saas qaba marka waa tawra ilaahay ma haddii ilaahay yiraahdo suuratul qadri inna anzalnahu fi laylatil qadr quraanka waxaan dejinay ilaahay laylatul qadri laylatul sharaf habeenkaas ayaanu soo dejinay suuradana hadda suuratul baqara aayadatan ku jirta shahru ramadaan alladii unzila fihi alqur'aan ilaahay wuxuu ku sheegayaa in bisha ramadaan quraanka la soo dejiyay haddana habeen oo muayyan ah waxa sii sheegaya aayadahaas kale حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين سورة الدخان إلهي وحوليه سبحانه وتعالى habeen oo markaasi mubaaraka ayaanu soo dejinaa fi laylatin mubaarakatin leyladaas mubaarakada waa laylatul qadri tafsiirka ugu weyn saas waaye marka hadda bishi balfiiri bishi quraanka ayaa la soo dejiyay quraanka ilaahay oo mucadamka ayaa la soo dejiyay bishi marka waxa weeye sidaasayba fadhiila gaar ay ku sii yeelatay quraankuna waa shay cadiima ramadaan sidaasoo kale weeye maxaa ilaahay quraanka waa tow dhahay ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم مولى إلهي قرآن هو عظيم رمضان سوى عظيم وي شيء إلهي مركو عظم كصفايو أما شديد نما كصفايو أما أليم نما كصفايو وحا مركز متفق أي كوين أي مدى
oo ahlu tafsiirka iyo muxadisiinta cid makhluuqa oo markaasi ogaa karta shaygaas qadarkiisa ma jirto. xataa ambiyada iyo rususha ma ogaa karaan cadamo wixii ilaahay uu ku sifeeyo. unzila fiihi lqur'aanu hudan linnaasi, haddana waxaa weeye dadka waxaa ugu sugan hanuun ayaa ugu sugan. qur-aanka waxaa weeye waa qur-aankii lagu hanuunayey. wa bayinaati min alhudaa, haddana waxaa weeye hanuunka aayado caddaynaya ayaa qur-aanka ku jira. walfurqaani weeye, waa iska cadfu tafsiirtaas iyaduna xaq iyo baadil iyo xalaal iyo xaaraam ayuu qur-aanku kala saaraya. hadda marka in ramadaanka uu farad yahay, ilaahay wuxuu dhaha dane faman shahida minkum shahra falyasum, qofkii adinka idinka mid ah oo dadkiina mukalafiinta ah oo bishaas xaadira ha soomo ayuu dhah ilaahay. laamtaa laamul amar weeye. waxay marka faa'iideynaysaa anna sooma ramadaan fardun, ramadaan in la soomo faral inay tahay ayay faa'iideynaysaa oo qof kasta markaasi far ay ku tahay. sida aayaddii ka horeysay oonu ku iftitaaxnay ayaduna waxaa weeye ay u faa'iideynaysay. falyasumhu, hadda waxa weeye markii la leeyahay faman kaana minkum shahra falyasumhu waa qofkaan macduur ahayn. isla aayadda ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala waman kaana mariidan aw calaa safarin faciddatu min ayaamin ukhar, qofkii adinka idinka mida oo mariil ah, maral oo waxaa weeye soonka u dhibaayo, ama musaafira, ama naagti xaamiladaa heeday, ama murdicadi, ama shaykhulharamki, dadka macnaha acdaarta ahlul acdaarka ah oo macduuriinta ah, kuwaas waxaa weeye markaasi waa afurayaan kuwaas. oo ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala waman kaana mariidan aw calaa safarin faciddatu min ayaamin ukhar, waxaa weeye waa afurayaa qofkaas. markaas wuxuu tirsanayaa maalmihii ou afuray cadadkoodii ayuu xisaabanayaa. markaasuu markii uu ka gudbo bishaas oo markaasi cudurka ou daayo ayuu maalmihii maalmo cadadkooda oo bilaha kale ka soomayaa. rasuulkeenu marka wuxuu dhahay ataakum ramadaanu shahrun mubaarakun farada allaahu caza wajalla calaykum siyaamahu tufataxu fiihi abwaabu الsamaa'i wa tuqalu fiihi abwaabu اljaxiimi wa tuqlaqu fiihi abwaabu اljaxiimi wa tuqalu fiihi maradatu shayaadiin lilaahi fiihi leylatun khayru min alfi shahrin man xurima khayrahaa faqad xurima u dha rasuulku. waxau dhaha nabigeena calayh salaatu salaam ummaddiisa isagoo baraarujinaya. hadda ummaddiisa waxaa weeye ilaa qiyaami saacati inti markaasi ummatulmuxameda oo mu'miniin ah oo dadka soonka loogu naadiye ah ayaa waxaa weeye arrintaas way baraarujin ay u tahay. haatan oo bishii ramadaan ay dhalatay ayaa nabigeenu nala hadlow haya. maxaa yeele hadda kaaftaas ataakum kaafulkhidaabaa la yidhaha carabiyada. hadday marka dadkaas gooni ay ku ahaa leheday waktigaas intii dhegaysanaysay ku gaabnaa laheed. waxay taagan tahay marka isagoo rasuulku nala taagan yahay ee hadda uu nala hadlayo. rasuulku markaas wuxuu dhahay ataakum ramadaanu, ramadaan ayaa idin yimiday. shahrun mubaarakun, waxa weeye bil barakaysan weeye. dadkuba hadda waxaa weye markay hadlaayaan waxaa dhalata bishii barakaysneed ay ku leeyihiin. saxiix waayo, nabiga calayh salaatu salaam wuxuu ku tilmaamay shahrun mubaarakun uu ku tilmaamay. waa bil barakaysan oo wax badan lagu barakayhayo. wax kastoo acmaala oo la sameeya bishaan ramadaan waa ay barakoobayaan. dadka muslimiinta marka waxaa laga doonayaa bishaan ramadaan inay ka faa'iidaystaan. fursadaas inaana iska lumin ayaa loo baahan yahay. marka halkaas waxaa noogu eg asaguna darsigeeni labaad oo duruus ramadaaniya ahay. in shaa allahu tacaala duruusta kalene waxaanu ku soo qaadan doonaa maaragtay fadaa'ilu sowm ayaanu ku soo qaadan doonaa. maxaa yeele shayga waxaa weeye fadaa'ishiisa haddii la sameeyo maxaa laga helaa, waxaasaa laga helayaa. haddii lagu yidhaahdo taxliil waayo waxaa lagugu boorinayaa shaygaas inaad samayso. marka waxaa weeye darsigeeni labaad oo duruusteeni ramadaaniyada ahay intaas ayaanu kusoo koobaynaa. waxaa noo bilaaban doonaa darsigeeni saddexaad. hada wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu.